الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada koorskeena farsamada baabuurta. Waxaan ku guda jirnay cutubkeena saddexaad. Waxaan marinay 10keena shanaad. Waxaan uga hadli doonaa nidaamka irbadaha. Waxaan soo jeedinayaa 10kan aniga waa Maxamed Safaarax. Jawaab celin waxaan ugu soo celin kartaan emailka shaashadana ka muuqda. 10kan imtixaanaha waxa kala socoteen koorsadeena Somalism Online Academy waa kala socoteen. nidaamka irbadaha shidaalka uu isticmaalo nidaamka irbadaha waa shidaal awood leh kana awood badan nidaamka uu isticmaalo kalbeederku kalbeederku awood badan ma lahan shidaalka wuxuu ku qiisan yahay salbatooyada waxaana ka soo qaadaya ama ka soo bamgareynaya fuel bump ama wii bamkaas waxa ku dhex jira salbatooyada dhexdeeda waxa uu ku shaqeeyaa dab ay maamusho maskaxda gaarigu waxaanu leeyahay meel uu shidaalku ka soo galo iyo meel uu ka baxo shidaalku meesha uu ka soo galo waxa ay ku leedahay shaandho wasakhda ka reebta waxa kale bamka ku dhex jira footriga lagu talagalay in shidaalka baxay uu dib u soo laaban shidaalka wiido ka soo baxo waa shidaal awoodiisu sareyso shidaalku marka uu wiida ka soo baxo waxa uu sii maraa filterka shidaalka ama kulcada si wasakhda uu uga reebo shidaalka kulcada waxa uu kasii baxaa waxa uu nasii aadaa waaskada irbadaha waa waaska ay ku xiran yihiin dhammaan irbadaha oo dhan waxa ayna ka qaataan shidaalka marka uu tago irbadaha dhexdooda waxaa maamulka la wareegaya maskaxda gaariga irbadahuna waxay ku shaqeeyaan dab maskax ah ustan kastana marka uu shidaal u baahdo ayay u furayaan waaskada irbadaha waxa ka soo noqonaya shidaal saidka ah waxa uu dib ugu soo laabanaya salbatooyada nidaamka irbadaha systemkan ay isku xiriirsan yahay shidaalku wuxuu ku jira taangiga wiida ka soo qaadaysa filter ku sii maraya waaskada loo soo gudbinaya kadib waaskaduna irbadaha gudbinaysa maamulkana waxa la wareegaya maskaxda kadib irbaduhu boston kasta xadiga shidaal u baahan yahay ay siinaysa irbadaha shidaalka ee elektaroonigada ah inta badan motorada batroolka ah waxay isticmaalaan hab irbadaha shidaalka ee elektaroonigada ah oo qaabaysan laakiin motorada naaftada ah waxay isticmaalaan diritaan toos ah shidaalkan lagu gaarsiinayo galaasyada iyadoo lagu sii gaarsiinayo jigtarada bay isticmaalaan laba duritaan oo wax kala jira midna jigtara la isticmaalo midna irbada la isticmaalo nidaamka jigtarada waxa isticmaala motorada naftada kan irbadahana waxa isticmaala motorada petrolka ugu dambeyn motorada hore waxay ahaayeen ku shaqeeya kalbeeder laakiin motorada dambe waxay ku shaqeeyaan irbado maskaxa shidaalka baabuurtu waa labo petrol iyo naafto petrolku waxa uu ka khafiifsan yahay naaftada oo hawada ayuu ku qasmaa inta bostonka uusan sameyn qarax halka naaftada aysan hawada ku qasmin ilaa marka uu qarax dhaco kadib ayay ku qasmataa hawada motorka naaftada wuxuu ka goox yar yahay ka goox badan yahay motorka naaftada wuxuu ka goox badan yahay midka petrolka ah waayo qaraxa ku dhacaya cadaadis iyo kulaylin heerkulka uu siyaadayo halka motorka petrolka ahna qaraxa uu sameynayo balaag qarax markuu dhacayo motorka naaftada ah wuxuu u dhacayaa si aan sinayn waayo hawada iyo shidaalku iskuma qasmada ama iskuma darsamin taas baa keenaysa inuu qaraxu u dhaco si aan sinayn gooxana siyaadinaysa halka petrolka iyo hawada ay isku qasmanayaan gubashada iyo qaraxuna uu ku dhacayo si siman taasoo keenaysa inuu qaraxa gooxooda u yaraado dhammaad 10kan intaas ku ogyahay maanta insha Allah waxaan u balan 10kan 10 ka waa mahadsantihiin